يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبرنامج كيني ولا ليال نشأتي بالقرآن كبر بارد إذا قرآنك حلقة دان وحامرتي نوعه ولكن عبد الباسط الشيخ عبد الحكيم الشيخ عبد الرزاق الشيخ بشير كسودو ولكن عبد الباسط برنامجك بارك الله فيكم أدبد ما سنت الشيخ ونكده برنامجك أحسن الله إليكم بارك الله فيكم سيدة عادة نوعه برنامجكين وحنا كفر فرندونا بإذن الله تبارك وتعالى آيات من الذكر الحكيم أو آخر دونه ولكن عبد الباسط الشيخ عبد الحكيم الشيخ عبد الرزاق الشيخ بشير بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك إلهي سبحانه وتعالى بركة ولكن عبد الباسط waxaan bilaabi doonaa عبد الباسط waraysigii وأيه عبد الباسط الشيخ عبد الحكيم الشيخ عبد الرزاق الشيخ بشير كل مقع الشيخ بشير والله ذكرنا يعني ما شاء الله العلمية غيركنا وأسرة علمية بل لكن عبد الباسط وأيه بل قابكو عبد الباسط taariikhdiisii ama waxweeyaan noloshiisii cilmiyeed oo kooban dhinaca maadiga iyo dhinaca sharciga intaba quraanka si gaar ah ugu iman doona insha Allah laakiin hadda si guud biidina inaad u dulmarto ku soo dhaw barakallahu fiikum sheekhana magacu saad sheegtay weeye qoyska cilmiga lagooga ayaan ka soo jeedaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakeeyo آمين يا رب العالمين توفيقي خاتمه ونكسنا وافجي دمان به دمان مسلمين تبه ان عبد الباسط وارد كميدا ardayda magaalada Burco ku nool waxa uu ku dhashay deegaanka Beledhiig ayuu ku dhashay waxa uu ku barbaaray oo uu ku kacaamay gobolka Togdheer gaar ahaan magaaladiisa Burco waxbarashadeedii ugu horeysay aan galo waxay ahayd quraanka ay ahayd madrasada la oran jiray Nuurul Yaqiin markii damana Iqra loo bixiyay halkaas ayaan quraanka ka bilaabay markii aan in muddo dhiganayna waxaan ku biiray dugsiga Sheekh Ibrahim oo dhinaca maadiga aan ka bilaabay markaa waan isku waday dhinaca maadiga dhinaca diiniga 2006 meelahaas filayaan bilaabay iskuulka Sheekh Ibrahim isaga ayaan ku soo qaatay dugsiga hoose dugsiga dhexe galaaska 5 markuu dhamaaday ee 6 ka aanu wareegaynay
ayaan ka bedeshay iskuulka oo aan u bedeshay iskuulka smart marka classics laga bilaabo ilaa form 4 waxaan ku qaatay dugsiga smart ayaan ku qaatay magaalada Burco ku yaala malcaamadii horena 2007 markii bilaamisay ayaan iyadana xaafadii ka guurnay kadibna waxaan u wareegnay malcaamad kale madrasada la yiraahdo Ibn Malik oo ama imankana ay ku qoran tahay Kacab Ibn Malik oo uu ustaadka yahay Sheekh Al-Fadil Muhammad Ciise Jaamic xafidahu Allah wa ra'ah oo ah sheekha xaqiiqatan diraasaadkiga quraaniga aad u saameeyay oo ah shakhsiyada aad i bedeshay ee sababtay inaan quraanka xifdiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo isaga yeelkiisa aad baan u salaamaya sheekhaasi kana xaafid lilquraan muallim kaliya muu hayn wuxuu ahaa mid ku aad ugu xeel dheer علومta shariicada kala duwan madrasada gudaheeda waxa ku dhigi jiray quraan baa lagu dhigi jiray waliba waxaan filayaa inta badan ardayda ka baxday quraanka way xifdisanayd oo qof kasta galab kasta waa u subin jiray macaamada ugu yaraan wuxuu subin jiray 10 waxaan leeyahay hal juz ayaa uu subin jiray subax kasta maalintii la bilaabay ilaa maalinta quraanka dhameynayso ama intaad macaamada dhiganaysid galab kasta laazim min as-sabt ila al-arba'a marka sidoo kale duruus kale oo aad u fara badan ayuu macaamada dhexdeeda nagu dhigi jiray ay ka mid tahay duruus tajwiidiya manzuumaat cilmiya ay ka mid tahay caqiido ay ka mid tahay ahkaam iyo fiqh ay ka mid tahay duruus aad u fara badan ayaa inta dhigi jiray aad buu sheekhaasi saamiya Allah xifdiye iskuulkana waan isku waday marka dugsiga iyo iskuulka iyo macaamada waan isku waday markii aan dhameeyay waxaan u jeedaa markii aan quraanka dhiganayay ayaa isaga waxa kale kamid ah culimada naadka ugu faaday fadilatu sheekh alwaalid Abdulkariim Xasan Xush oo quraanka anu jiiska hoos maraya ayaa walaalkay al-akh al-Kariim Abdulkariim sheekh uu sababay inaan ku xidhmo tafsiirka sheekh kala 2007 anu aad u ciyaala quraanka jiiska hoos maraya meel sarba gaarin ayaa uu isoo kaxiyay maalin kamid ah soo kaxinayo Abdulkariim walaalka Abdulkariim aywa soo tafsiirka kan Sheekh Abdulkariim marka tafsiirka Sheekh Abdulkariim kasan kaga xidhmay waxyaabahan xasuusta waxa kamid ah anigu 10 jisba aan filayo inaan dhaafin oo tafsiirka iska taga marka wax badan kama fahmin jirin oo fariisan jiray oo dhageysan jiray ayaa waxa soo dhacay al-akh Naasir mid la yiraahdo jaamacadaha magaalada qaar kamid ka baxay ayaa galab anoo soo socda tafsiirka soo socda صح ayaa uu su'aal ajiib weydiiyay waa gartay waxaan wada dhigan jirnay tafsiirka kadibna wuxuu igu yiri cad baa sax socota tafsiirkii hal xaq uu mariyay san ku suuratul nisaa halkaas uu mariyay kanu ta dhaafin karin maayo toosu karin maayo bugu mariyay xitaa si fiican markaas ma gaadhin xataa ma gaadhin fidii suurada laakiin isagu duu tafsiirka uu dhigan jiray joogi jiray markaas wuxuu igu yiri waxaad macnaysaa ayada ilaahay yiri inna allaha ni'ma ya'idukum bi subhanallah markaasaan wax iska iri markaasuu ii sheegay macnihii wali ma ilaawin 2007 baan fuleenahay waxa kale oo kamid ah waxyaabaha ajiibka ah halka ku guda jiray tafsiirka sheekha ayaa madrasada الشيخ الأستاذ محمد عيسى ابن مالك ayaa waxa uu yiri maalin isagoo nabadina ayuu wuxuu yiri intaan tafsiirka hore sheekhu intuu dhameeyay kii kale soo bilaabmin buu maalin madrasada dhexdeeda nagu wacday kadib wuxuu yiri ardaygu weyn ku naash yar lahaada bug yar oo faa'iido ku qorto inuu lahaada oo xadiiska cusub xikmadda cusub waxa cusub ee aanu aqoon ku maqlo ku qorto kadib waxaan dhacday bug yar oo kontola William Kawan haya bugi ayaan soo qaatay 2010 baan filayaa dhexdiisii ama 12 intaan 12 ku bilaabin ka hor baan filayaa ahayd iyo sheekhu tafsiirka bilaabay marka bari dambe weeyaan يعني waxa tafsiir hore dhamaaday mid dambe tafsiir mar labaad ay ku celiyay kadibna waxa dhacday buug yar aan iska soo qaatay marka anu cilmi badan ma qori karayo qoraalkuna bilowgiigu yahay kadibna waxaan bilaabay inaan qoro ereyga aanan garanayn macna Carabi intaan ku qoro ayada tafsiirka aan garanayn macna intaan ku qoro Soomaali baan ku qori jiray sheekh kadibna saasaan ku bilaabay kadib barihii dambe waxyaabo demo yareeray fawaaid sheekhu sheegay qaar baan yara awoodi jiray aan qoro ila ma sha Allah ay gaadhay markii dambe dhowr bog inaan hal majlis oo tafsiirka الشيخ فوائد كقرأ جميل جدا طيب ونوصل نقطة هذا دون تاس اللهم بارك حقي مركز هذا وحين نمرس من العامات دي حفظ القرآن كمركز شيخ محمد عيسى وسجى كل ما يقش القرآن واحد كده يسمع العامات شيخ محمد عيسى عمر هبي سجى معنا كهرباء عمر هبي وحن كدكتي توجز ما كدكت إلا قص بين مريء
kadib 10ka waxaan xifdisanaa 3 juz toddoba kale baan xifdisanay marka madrasadan kale ibn Malik markaan soo gudbay Sheekh Maxamed Ciise markaan soo gudbay ayaa uu yiri inta xifdisan tahay imsan 3 kadibna intuu taxan yar iga qaaday buu sameeyay wuxuu iga bilaabay suuratul Hadiid min suuratul Hadiid ila al-Baqara ayaan ka dhameeyay Sheekh Maxamed Ciise khadmo mar labaad waan ku celiyay marka madrasada برجي دم واحد من شري قلبت يوم تيجي شري كلية وسمع كلية أنتوا شري قلبت يا عجيب كواحد كم ده الله سبحانه وتعالى حمد يسير شو يسير كميتها من باب وأما بنعمة ربك فحدث كلام أنا سيدك صوت صعداء أيان واحد عادي وحان مساج كنود وابن كنت كذي مركا كدي من وان كائن من مدرسة دانيمي كدي ما نصبعني عن فليا مركا نصبعني كدب إن هيد من فليا أيا وحليش هيجي إن نقول واقعي امتحان كي أيتك كلاس ايدك سمع الله صح كدبنا وحاجيب هيد انا اسك سبعني اسك دقن كدب سمسنين كدب ما فلياني هيد ايا ليش شيء ان كميد هاي tobanka ugu sareeyo Soomaaliland tobanka ugu sareeyo Soomaaliland oo dhan ma sha Allah ugu sameeyay kamid taasi ma sha Allah tabaaraka Allah kaalinta gashay tabahay kaalinta sideed ma sha Allah tabaaraka Allah in halka waxaan ka salaameynaa Sheekh Maxamed Ciise oo runtii aanu asxaab nahay ma sha Allah معلم رنتي القرآن يعني وتصالة هذا نيكي لبعض أما أرضي لبعض إنه صومرة شيخ محمد عيسى رنتي أمهد عليا معلم كوسامين وكلية أرضيدا يعني القرآن كأرضيدا ما تقدر يسمى ما تقدر جيسة سيدا ونكسر ما القرآن كذو بريسوا تأثير كودو يسامين تودو نماذج ما شاء الله هذا إنه أركين مقرن ساي ما شاء الله يعني تصالة يا شعة المعلمين تصو صارتي رنتي ويعني شيء آدي رنتي لو فرح ويان أشر كنا أوصعنا يدعاء وحوي رنتي يعني هم باليدو اللهم بارك الأخ عبد الباسط حفظ القرآن كمركز حفظ ذي اللهم بارك تاسو علينا عي قرآن كحفظ جيسي سكول كي سجوا واحد كجاد باتري سجوا واحد مشاكتي سكول كشيخ إبراهيم سجوا حاجة كجاد تري كلا سجس مكان مري فيف مكون ما هذا ما سجس وجود بس واحد جود مركز سمارت مركز كذا مست كاسو دين عمادي دين عشر عجانا دين عشر عجانا سكول كهم في اللي يفهم تو ملاها مكانها عن تفسير كي دروس كلا مرسد من مالك اللي يقول جيو كبعدي يدرس مساجد كلا يقول جيو مرة قارك خد لقيها بين قارك مير حاضري أما دورين كلا قبنا يو كلا لوضع مركي عن فم توجا هاي سكول سمارت مكان فم توجا أيها وحال فري معهد الإمام مالك الليلي الثانوي معهد الإمام مالك بن أنس الإمام مالك بن أنس معهد كيسايا لقوا مع دري أيها الفري كدمنا وحناها جلس كجور ريال الغفر ما شاء الله مركا isaga ayaan 3 sano ka dhigtay secondary-ga thanawiga sharciga sifiyaan kadib markaan dhameeyay waxaan ku biiray jaamacad Gulis kuliyadeeda shariicada daraasaadka islaamiga sifiyaan iyadana waan dhameeyay alxamdulillah wa fadli ma sha Allah imaka waxa ay dhiman kaliya baxthigii qoritaankiisa baa dhiman laakiin daraasaadkii way dhamaadeen dhinaca kale labadii semester ee ugu dambeeyay jaamacad Gulis aan filaynahay waxaan galay dhinaca jaamacadda Burco ayaan galay oo aan ka galay fakalka medicine ayaan ka galay caafimaadka marka medicine ayaan imika bilaabay semesterkii labaad baa imika sii dhamaanaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala fudaydiyo ما شاء الله تبارك الله الله عبد الباسط اللهم بارك يعني ديني مادي واحد كوضع إلى جامعات ديني شرعي هنا إلى إيوه جامعات نعذر ما يسيبها اللهم بارك الله عبد الباسط حاجة قرآن كادين وصلنا عنه مسابقات قرآن إيوه ترتنات كذي بشيء مجرى way jiraan musaabaqaadkan ka qayb galay waxaan filayaa waxa ugu horeeyay musaabaqaadka gobolka lagu qaban jiray oo laba jeer ka qayb galay marna 15 bay ahayd marna 20 bay ahayd ka 15 markaan galay ayaan kaalinta labaad galay waxa kale jiray musaabaqaad iskuulka smart uu qaban jiray sanad walba oo quraaniya ma sha Allah musaabaqaadka uu iskuulku qaban jiray laba kamid ayaan ka qayb galay alxamdulillah wa fadli مرنا شمس بيهاد مرنا توم بيهاد لوضو كان كله لوضو كان كله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك حاجة هذين إنه عندنا صلاة إيو رمضان إيو تراويحها إيو رنتي ما شاء الله وحليده إلى ذا إيو معان تراويحها ما شاء الله مسوت بشيء صلاة تراويح ده إيو ها شيخ تكلم صلاة يقول رسالة بس طلعوا تيبي هيد مساجد كيف وسأها سم حضر أنت تراويحها وان كغيب قاتي وان كلا إن وحن حسستها ترى واحد يقول ريسيان كقيب قاطو waxaan u jeedaa in tujiyo waxay ahayd aan filayaa 2009
marka xilligaas waxay xilligan quraanka dhameeyay bay ahayd alxamdulillah fadli waan xifdisana marka shantii iyo dheeraad iyadoo ah galabnimo ayaa الشيخ طاهر عبد الله oo culumada maxadka xikmadiga kamid aha ayaa intuu yimid igu yiri caawada ku qoran taraawixda ku qoran masaajidka ku qoran masjid wuxuu ahaa masjid Abu Bakr Siddiq oo xaafadayda ku yaalay imika ku yaalayo ha marka day u diyaarsanaa quraanku laakiin naxdin aad u far badan faajitay sheekh awal marra markii ay tahay marka ugu horeysay mikrofoonad qabtay dadina aad buu yareed marka waxaan xasuustaa waliba suurada laga bilaabay waxay suuratu Yunus xisbiga subhanallah lilladina ahsanu alhusna ay xisbigaas laga bilaabay waan galay noo aad u baqaaya ayaan galay laakiin alxamdulillah fadli waxaan xasuustaa hal meel baan khalday laakiin waa la sheegay saasan ku dhameeyay kadibna taraawixo kale iyo masaajidada kale aan tujiyay jiraan waxa cajiiba ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fadli ugu mahadnaqaya markii sanadku dhamaa 2018 markay dhamaatay kadib aan xasuustay sanadka 2018 waxay u kulmay ajaayib aan la yaabay markii sanadku dhamaaday kadib aan dib xasuustay si fiican waxay ahayd sanadkaas waxaana sanadkan iskuulka form 4 ka ahaa si fiican sidoo kale wuxuu ahaa sanadka aan fasl Abu Bakr kagu sareeya ahaa macahad Imam Malik Yunanas kiigu sarriyad marisay kiigu sarriyad mariyay isagana dad xan gudoomiye la galiyay iyadoo labadaas culaysba ay aad jiraan ayaa hadana oo kii maxadkii sharciga ahana sanadkii ugu dambeeyay marayso kii maadkana si ugu dambeeyay marayso laba sanadkii ugu dambeeyay marayo ayaa waxa dhacday waxa lagu soo qoray taraawix masaajid baa lagu soo qoray October ku yaalay taraawix laga soo qoray Sheekh Cabdirasaaq Nuur masaajidkiisii kadibna hadana waxa lagu soo qoray tahajjudka masjidul khayr iyadoo asladaas ba jirto ayaa hadana waxa lagu soo qoray tahajjudka masjid sunna yaana fanfuriyo waxaan ka ahay laba fanfur baan ahay marka taraawixda isaga masaajidka October baan ay jiray tahajjudka waxaan horeyn jiray masjidul khayr baan horeyn jiray afar toor intaan soo dujiyay baan ka yimin jiray sunnaan labada saddex afar dambe tujin jiray marka sanadka laba tahajjud isku wada laba tahajjud iyo taraawix insha Allah marka waxaan markii sanadku dhamaaday kadib baan xasuustay markii hore maan dareensanayn taana fadliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala weeyaano aad u diyaarin badan quraanku ima baahneen waan xifdsanaa ma sha Allah Allahu barik Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ugu mahadnaqaynaa halka waxaan ma sha Allah xisbigi wareed ku jirta waxa suurat Yunus xalqadii hore waxaan ku soo sheegnay walaalkii xalqada martida oo noo aha isna xisbigu horeeyay ku bilaabay inuu ahaa lilladina ahsanu husna wa ziyada xalqada waxaan ku soo sheegay ana xisbigu horeeyay taraawixan tujiyay inuu ahaa lilladina ahsanu marka ma garanayno talow ma xisbi yar adag baa laga yaabaayo dadna ragga masaajidda tujiya marka habeenkaas ay cudur daartaan oo marka cid kale meesha la keeno ma sha Allah tabarakallah kulli hal su'aal oo aan ka jawaabin jira aan dib ku xasuusinayo ku saabsan dhalashada taariikhda dhalatay waayo aan filayaa in aanad ku baraarugin su'aashaas taariikhda dhalashadu berigii hore anu meeshan ku dhashay miyiga ku dhashay miyiga deegaanka baldiga ku dhashay تقريبا waxaan filayaa 89 meelahaas ay ku beegantahay ما شاء الله تبارك الله الأخ عبد الباسط ما شاء الله قرآن كما كنت حفظته كبعدي اللهم بارك مسابقات أدق شيء تراويح تجسي طبعا هذا من باب المناسبة مساجد كمسجد الخير هبين كسنة كاستيتون كي وتجيني التهجد كيسي هذا الشيخ وسجى كإمام رسمية وشنطة صلوات بتجيا اللهم بارك waxaan doonaynaa hadda bal gunaanadkii barnaamijkeenu joognaa tala iyo tusaalaba maxaad siin lahayd tusaalahan dhalinyarta insha Allah tabaaraka wa ta'ala doonaya quraanka inay xifdiyaan ku dadaalaan ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku kulmiyay maadiga iyo sharciga labadaba inaad heer aad u sareeyad ka gaadhay arday far badan maanta maadiga barta waxay u haystaan quraanka inaan qayb karin inaan xifdi karin culumada sharciga inaan baran karin risaalada gudbinaad maanta maxay ahayd risaalada inuu gudbinayno dhalinyarada daayirta iyo dadka waaweyn labadaba waxay tahay xifdiga quraanku maadka xaqiiqatan maadka laakiin wuxuu baahan yahay dadaal waqtiga la nidaamiyo macallin wanaagsan in la helo xaafido ah in waqti lagu bixiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la kaashado oo la weydiisto inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kaalmeeyo idaa lam yakun aawun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isti'aanadiisa iyo kaalmadiisa iyo dadaalka la imanayo markii labada la isu geeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku guuleynaya ama yarow ama weyno Soomaalidu waxa ku maamaada subax iyo sadar subax ayaa badan marka hadii in yarba aday doonto aad maalinba bog ama bad ama dhowr aayadood ka baxdo marka dabi fadlan rahmatiga waad dhameynaysaa quraanka waad xifdiyaysaa marka quraanka xifdigiisu maadka laakiin wuxuu baahan yahay
in juhd la geliyo Soomaalidu waxay ku maamaadaa fadhi iyo fuudi cibad la isku waa inaad iska raaxaysato kadibna aad doonto inaad quraankii noqoto qof xifdisani shay adag weeye sabab Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga yeelay dadaalka aad bixinayso baa sabab noqon karaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma kugu kaalmeeyo inaad quraankii xifdido ka dadka waaweyn iyo dadka yar labadaba waxaan kula talinaynaa inay bilaabaan hankoodu inuu sareeyo oo aan meel hoose ku wareegin aan niyadooda iska xumeeyeen macaaliya la yimaadaan quraanka ay ku dadaalaan macallin wanaagsan ay doontaan waqti wanaagsan ay huraan ajaa'ibta jirta waxa kamid ah waalidiinta qaarkood imaka awlaadda carruurtooda ay dhaleen waxay sameynayaan subaxdii laga bilaabo saada subax kadib ilaa iyo galka dambe laga gaarayo inta wax ku mashquulinayaa maadi kadibna waqtiga kaliya qofka yar haysta waxa weeye galinka dambe oo kaliya galinkii dambe waxa laga yaabaa inaanu waqti munaasib aanu helin ama cid wanaagsan oo la dadaasho aanu helin marka taas waxay dhacaysaa in ay u ka dib dhaco quraanka xifdigiisii sidoo kale barahan bulshada iyo mushkiladaha jira ay mid jira waxay kamid tahay waxyaabaha keenaya caqabadaha saameynaya caqabadaha aad ku waaweyn quraanka xifdigiisii dadka ka jeediyay bay kamid tahay waxa kamid ah waxaan filayaa hore uma soo sheegine laba waqti oo kala duwan baan macallin quraan noqday marka madrasad hore Nuruddin loo oran jiray 2018 kan filaynay ahayd ayaan anigoo subax ku jira ayaa waxa imin jiray arday xifdigiisu aad u wanaagsan oo taf ahaa ma sha Allah kadibna ma sha Allah Allahu baarik subax suuratu zumar wuxuu mariyay quraanka suuratu zumar kadibna subaxdii dambu ku yimi ayaa uu sir bogi bilow waxaan filayaa inna anzalna alayka alkitaaba aayada inuu ka bilaabiyaan filayaa kadibna uu dhaqaajin ba waayay aayadii koobaad buu dhaqaajin waayay waan yaabay wuxuu waliba ahaa ardayga ugu horeeyay quraanka baxaynta badan soo jaali jiray subhanallah way qabsatay maalinka way qabsatay kadib halka fariiso ama ardaygu ka saxo uu soo noqon karo ardayga kale quraanka soo dhageystay haddana mar labaad buu yimi haddana aayadii koobaad buu dhaqaajin waayay ardaygan dadaal iyo xifdi ardaygan ku ogaabuha kadibna gaar baan la baxay maxay isbedelay markaa wad wareysay gaar baan la baxay kadibna wareystay kadibna markii hore ugu warwareego caadi buu sheegi waayay markii dambe ayaa waxa uu yiri xalay baan quraanka xifdiyay waan qaybay quraanka bari ka bixlaa markaan qaybay kadib baan filmaan daawado subhanallah mobil qaraabada qaar kamid leeyahay baan soo qaatay kadib filmaan daawado kadibna muska masaxmo la ilaaha illa allah kadibna marka waalidkii baan la xiriiray oo sheegay inay ka ilaaliyaan waxa soo kale waayo quraanku cid meesha waleynaysa qalbiga weey qalbiguna in la nadiifiyo la hagaajiyo oo uu tahay maqayu baahan aad marka waxaan u ducaynaynaa dadkii ka soo qayb qaatay xifdiga quraanka uu ay ka tahay ugu horeyso hooyaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiyo Ilaahay barkeeyo dadaalkeeda iyo juhdigeeda iyo daacadnimadeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo miisaanka xasanaadkeedana ugu daro sidoo kale waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala bariya al-ab al-kareem abi in badan uu ka soo qayb qaatay xifdiga quraanka iyo dadaalkeeda waxaan xasuustaa annagoo saddex oo walaalo ah oo jimco kasta nagu barbaariyo ama nagu qasbo qof kasta inuu 10 juz akhriyo kadibna 3 saacadood ama 2 saacadood ay 10 juz lagu dhameynaya jimco kasta sanawaad aad u fara badan beerigaas ay socotay khayrigaahi sidoo kale waxa aan u duceynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hu naxariisto jannooyinkiisana ku casuumay الجد الكبير الشيخ عبد الرزاق من الشيخ بشير وأنا أقول صغير بقاتي إن أنا كنت ضيضو قرآن كإن أنا برتو إن أنا كنت دالو وعد جيسي وندي سنين بدنا أنا قرأ صغير بقاتي مركز تو قرآن كوحنا شيء ده مركز تو قرآن كدميو هذا ندي بسوا بلا بشري وردي شوكتا أو صعتا أيوه لها قرآن كأو قرآن كدميني يا مانتا هذا ندي بسوا بلا بيا هذا ندميني هذا ندي بسوا بلا بيا تأرين كاسن واحد كم تبي حيابي أنك ضيضي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيف يدي لما مسلم إلهي سبحانه وتعالى الدنيا تدار دافو أول إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو يا والدين تين الأمان تود بيا والدين تي كسر ريبة ما مسلم إلهي سبحانه وتعالى خير كوانا جهوا فتشيو إلهي بن ودي سنة قرآن كإنه نوفذ ديو إنه قدقه أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته بن إلهي ودي سنة إنه قدقه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وحين شوقنا دماتكي برنامجك حلقة وحمرتين وأها ولكن عبد الباسط شيخ عبد الحكيم شيخ عبد الرزاق شيخ بشير جزاه الله تبارك وتعالى خيرا أدبن ومهد علينا runtii waa tusaale dhalinyartu ay ku dayato oo runtii inaan ma sha Allah daadiisu yartahay yani 22 ah oo ma sha Allah yani waxbarashadii sharciga meel sare ka gaaray maadigina meel sare ka gaaray xifdiga quraankana ma sha Allah xifdisan macallin quraanna yani aha runtii in wax badan la isku wadi karo yani u baahan tahay aziima iyo go'aan adag xifdiga quraanku bacda tawfiiq Allah subhanahu wa ta'ala أدمن وهذا علينا ولكن عبد الباسط شيخ عبد الحكيم حلقة ديننا ساس أي كل ما نساب بإذن الله تبارك وتعالى وإنه
barbaare cusub iyo xalqad dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم